Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan inta ku xiran YouTube channelkayga waxaan idin leeyahay soo dhawaada asxaabay fadlan hadday tahay marka ay kugu horeysay aad soo booqatay channelka waxaan si xusmad leh kaaga codsanayaa inaad inoo saartid subscribe sidoo kale like inoo dhahdid commentigaagana waa inoo muhiim waxaa falcelin soo samaysay walaasheena fahmo soo loo geystay dhibaato ka baxsan nolosha bini'aadanka ma aaminsani ruux bini'aadan ah isla mar ahaantaas damiir ku dambeeyo inuu falkaasi ku kacayo laakiin si walba ay ahaato fahmo ayaa waxay inoo cadeynaysaa sababta ku kaliftay in intan ay soo qarsato taasoo ah fahmo hooyadeed waxay dhashay ayada keliya gabar ma haysato gabar kale ay sirteeda ay u sheegato sidoo kale fahmo ayaa cadaysay in hooyadeedu ay aad u aaminsaneed fahmo kama walwalsana dhibaatada nafsadeeda soo gaartay balse waxay ka walwalsan tahay taabaca hooyadeeda ku dhacay. Assalaamu calaykum midda soo fariistay inaan ka hadla arabo waxay tahay su'aasha ugu badan oo isku soo noqnoqota waxay ahayd adoo lagu kufsaday oo dhibkaas lagu geystay maxaa u qarisay hadaa idin sheegay weligii hooyaday waxaa dhihi jiraan hooyo gabar kale maxaa iigu dhali weysay maxaa keligay ii dhashay keligay inaa ii dhashid ma ahan gabar walaalaha u baanaa waxay dhihi jirta may adaa kun gabar iiga fiican adaa wax kasta ku qoradaa tahay see inta u hortaga dhaca hooyo waa laga xirfarcmee waa awoodi waayo inaad dhaho waa qadsaday waa aamusay xanuunka ani aa dareemayo waxaa igala weynaa hooyadii midkee dareen doonta markaa u sheego mustaqbalkayga inaa waayo waa ogaa wax kasta inay iga gubto waa ogaa haddana hooyadaa see noqon doontaa baa islaa sababta hooyaday markasta waa igu faani jirtay dad badan bay dartay ula soo kala go'day dad badan oo hooyaday heer walbay gaari lahayd ani dartay u gaari weysa inta u tago sidee ku dhahaa hooyo macaan hooyo igaraale noqo maaska aragto waa kasoo bixi waayo shalay keligay ahay maanta laakiin maanta waxaa dhistay wiil kastoo Soomaaliyeed inuu walaalkii yahay hooyaday waxaa dhihi jira hooyo gabar maxaa iigu dhali weysay laakiin maanta adigaa walaal ii noqotay kun gabar inay la dhalata aaminsanaa hooyaday ma awoodin inaan hortaga aadha hooyo see ku dhaha hooyo nolosheedii gabadhaa ku faani lahayd rajadaadi waa khasaartay waa awoodi waayo sababtaa u qariyaan sababtaasay ahayd laakiin ma aamusin oo gabar masaakiin oo jilicsan maana noqonin waa dagaalamay intaad dagaalami karo nimankii waa xiray waxaa isdhehe waa guulaysatay maanta waa noqon kartaa gabadhii hooyadaa ayaad rajaynaysa inaa noqoto laakiin may waa noqon waayo hooyo macaan iska kicaafi fahmo waxay haysataa taageero aad u fara badan walaalo aad u fara badan waxay ogaatay in ay leedahay walaalo fara badan fahmo ayaa muuqaal ay soo dhigtay isagoo yaallo 8 hawrs ayaa daawad 1.2 milyan Soomaalina buuqa aad ay u jecel yihiin sidaan dareemayo sidoo kale waxaa faale ka bixiyay 32.3 commenti sidoo kale commentigaasi waxaa ku jiray rag baraha bulshada saameyn ku leh isla mar ahaantaasna ka ah famous sida Asad Hajiyo oo leh sorry abayo sidoo kale Mrs Walda ayaa dhahday abayo sorry aniga ayaa walaashaada ah garabkaaga taagan sidoo kale Mrs Muna ayaa dhahday sorry abayo ha ooyin aamus garabkaagi ayaan nahay sidoo kale Samara Queen ayaa soo gashay isla mar ahaantiina ooysay yaa allah ilaahayow qalbiga u qabooji aamiin yaa rab sidoo kale Shaadi Sharaf ayaa dhahday isla mar ahaantaas oohin ku xigsatay ay leedahay abayo macaan hooyo macaan iidaa kaa dareen badan cadkeeda ciyaar kuma tuur Soomaali oo dhan ayaa walaal kuu ah ayo ha ooyin sidoo kale Bana Boy ayaa soo galay wuxuu dhahay abayo aamus sorry oohin ayuu jabsaday sidoo kale Milyuun Maanka ayaa soo gashay oohin ayay jabsatay sidoo kale Hodan Cali waxay dhahday abayo murugtaada farxad Allah kugu bedelo ugu dambeyntii fahmo ayaa hooyo macaan ka codsatay inay iska cafiso qarsaday waa aamusay
xanuunka ani aan dareemayo waxaa igala weynaa hooyaday midkee dareemi doonta markaa u sheego mustaqbalkeygina waayo waa ogaay wax kasta inay iga gubtaan waa ogaay haddana hooyadaa see noqon doontaa baa islaha sababta hooyaday markasta waa igu faani jirtay dad badan bay dartay ula soo kala go-day dad badan oo hooyaday heer walbay gaari lahayd ani dartay u gaari weysa inta u tago sidee ku dhahaa hooyo macaan hooyo igaraali noqo maaska aragto waa kasoo bixi waayo shalay keligay ahay maanta laakiin maanta waxay tusteen wiil kastoo Soomaaliyeed inuu walaalkii yahay hooyaday waxaa dhihi jira hooyo gabar maxaa igu dhalibaysa laakiin maanta adigaa walaal ii noqotay kun gabar inay la dhalato aaminsanaa hooyaday ma awoodin inaan hortaga aadha hooyo see ku dhaha hooyo nolosheedii gabadhaa ku faani lahayd rajadaadi waa khasaartay waa awoodi waayo sababtaa u qariyani sababtaasay ahayd laakiin ma aamusin oo gabar masaakiin oo jilicsan maana noqonin waa dagaalami intaad dagaalami karo nimankii waa xiray waxaa isdhehe waa guuleysatay maanta waa noqon kartaa gabadhii hooyada ayaan rajeynaysa inaa noqotid laakiin may waa noqon waayo hooyo macaan iska kii caafi